وعنا wanaagsan dhamaantii meel kasta aad joogtaan asxaabta iga xiran YouTube-kan Caalami Official. Muuqaalkan maanta waxaynu ku qaadan doonaa topic ama mawduuc saddex taqaan. Maalin waxaynu soo qaban doonaa topic ama mawduuc wax khaas ah ka hadli doona. Mawduucan maanta wuxuu ka hadli doonaa Somaliland. Waayahay aynu markaas leeyahay hadaba Somaliland is a full sovereignty. Somaliland waa qaran dhammaystiran. And gained waxay ka heshay its independence xorriyadeedii from UK United Kingdom ay ka qaadatay xorriyadeedii. After several days later kabacdi dhowr cisho they met with waxay ku biireen oo ay ku darsadeen other part of Somalia qaybta kale ee Soomaaliya ay ku darsadeen reform say u sameeyaan Great Somalia Soomaaliyadii weyneyd. But unfortunately laakiin nasiib darro things did not go the way they thought. Umay dhicin wax kastaba siday u qorsheeyeen. Things did not go the way they thought. Siday u maleynayeen wax umay dhicin. When markii Siyaad Barre took over Somalia, markuu la wareegay Siyaad Barre Somalia, he started wuxuu bilaabay to genocide inuu xasuuqo the people of North dadkii waqooyi, especially khaasatan Isaaq clients qabiiladiisa. And civil war began. Dagaalkiisa kooyana waa bilaabmay. When markii Somali National Movement ama SNM and other insurgency iyo jabhado kale opposite Barre's regime ay ka soo horjeesteen rejiimkii Siyaad Barre. Somaliland broke away. Somaliland way ka gooday other part of Somalia qaybta kale ee Soomaaliya. Eventually ugu dambeyn SNM declared way ku dhawaaqday SNM Somaliland it is independence. Madax banaanideedii Somaliland way ku dhawaaqday taariikhdu markay ahayd May 18 1991. Improvement of Somaliland hadda waxaanu ka hadlaynaa horumarkii Somaliland samaysay. Waayahay since in 1991 ilaa Maayo 1991 the territory dhulku has been wuxuu ahaa governed by mid lagu maamulayo democratically si dimuqraadiyadeed elected governments taasiikii dowladihii la doortay kuwaasoo ahaa kuwa raadinayay international recognition aqoonsiga caalamiga amase ictiraafka as the government of Republic of Somaliland. Somaliland is not recognized as a sovereign state. Somaliland weli xukuumad madax bannaan looma aqoonsan. Any foreign government wax dowlad qalaad ah ama dalalka inaga madax bannaan foreign government xukuumadaha qalaad inama aqoonsan. But laakiin many effectively acknowledge it. Laakiin kuwa badan ayaa markaas xoog leh ama si saameyn leh u aqbalay it has separated from inay ka baxday Somaliland from Somalia inay Soomaaliya ka go'day. And even xataa other countries dalal kale waa dalalkii markaa qaaradda Africa ku yaalay recognized way aqoonsadeen Somaliland like sida Ethiopia, Taiwan, Kenya, Ghana iyo Djibouti. Somaliland way qabsatay its first election doorashadeedii koowaad in 2002 and has held waana la qabtay presidential tii madaxtooyada and parliamentary election iyo doorashadii baarlamaanka. qaybtii labaad iyo qaybtii saddexaad way soo socotaa. Soomaaliya iyo dalal kale jaarka iyagana muuqaalayan ka samayn doonaa waana ka soo hadli doonaa lana soco wixii dambe.